iid noo ah farxad noo ah inuu nagu wareejiyo gaari uu meeyarku noo iibiyey oo ah gaariga maanta ugu weyn 6 region uguna qaad weyn uguna tooriyo badan waa gaari aan u baahneen waa gaari naga oodi doona baahi fara badan noo shaqeyn doona ilaahay waxa ka baraya inuu noo noqdo gaarigii dalka anfaca Mr. Mayor lacagta meesha ka soo saarteen ilaahay aad ku khayr aad ku bedelo gaarigana كل نقول ما كيجو الرئيسي سانية الكاركو ماير كان معنته هو الرئيسي والضب أركو واحد معنتي ليك بليس كهبيكي شعورتي ساعد منو أركانو معنته عاد بوجد لي معنته سو نيدك شيء إنه دبدبس وحقبته معنته إلا معنته ما حفيزة تغنو بوغشي سنو بدن باهيل دوي بدن تماير واد نجر اللي هندون تسال نرد استماشى meeyarku markaan saaw galno ayuu na gartaa baahideeda markaaba uu noo dhameeya marka meeyar aad baan ku duceynaa gaarigani 120 foosto qaadaya 110 mitirna waxbu ka baqteenaya 450 galaan daqiiqadiiba ay sii deenaya bamkiisuna 1 galaan buu markiiba sii deenaya marka meeyar aad iyo aad baan ku soo dhaweynaya waxaan ka faa'iideysanay halkan oo mahadnaqsna uga celinaya gudoomiyaha banka dhexe Ali Abdi oo gaariga ku xigay noo iibiyayna marka Ali Abdullaahi aad iyo aad baan isna ugu mahadinaya hadii department walba oo gaari uu iibiyo dalka de waxaan noqonaa imbika wada nahay dabdamiska ugu fiican baan noqonaa aad iyo aad baan doodan ugu amaanaya in 6 gobolba aanu gaarsiinay Hargeysa kaliya 4 meelood baa jira goboladana wada gaarsiin hada dawladaha jaarka eegtid caasimada ay xabad mid kale ku leeyin inagu aan ictiraafsaneen miisaaniyaduna iska yara kooban tahay ayaan 6 gobolba aan wada gaarnay marka waxaan hadana jaaniska ka faa'iideysanaya maadaama Ali Abdi uu gartay meeyarkuna uu noo gartay waxaan ku boorinayaa hay'adaha kale ee ka midka ah Telesom Somtel Dahabshiil Sompower Somgas soo gasho Maxamed Saciid bangiyada kale gaarka loo leeyahay kaalimaha shidaalka iyo wixii tujaara sanadkiiba hadii mid noo iibin lahaayeen maanta waxay noqon lahayn dabdamiska adduunka ugu weyn hadeen sanadkiiba 10 gaaribsano hay'ad walba gaaribsato marka aad iyo waxaan ugu boorinayaa in meeyarka iyo bangiga noo iibiyay inay gacan qabtaan iyo ku soo niyad samaadaan Mr. Mayor aad iyo aad baan ku mahadinayaa ma ku soo dhaweynaya taliye marka ugu horeysa waxaan qadimayaa inaan maadaama sanad inoo dhamaaday oo habeen dhaweydna aanu soo bandhignay wax qabadkii sanadkii tagay waxaan doonayaa inaan aad uga raali gelin uga bixiyo inaanan markii aan mahadnaqayay inaan ciidamada dabdamiska aanan xusin waayo ciidamada dabdamisku shaqada ay la hayaan dawladda hoose waa shaqo runtii baaxadeeda iyo intay la eg tahay nin arkay uu garanayo waxaanan runtii ciidamada dabdamiska ee naftooda hurayaasha naftooda u biimeeya si ay naf kale u badbaadiyaan waxaan uga mahadnaqayaa shaqadii baaxadda lahayd ee ay nala qabteen sanadihii tagay waa ciidanka xilli kasta iyo goor kasta gurmadka loo baahdo dawladda hoose la gala waa ciidan nala qabta shaqo ka badan dabaqtiin waa ciidan dawladda hoose ay ku tiirsan tahay marka ay timaado badbaadinta iyo samata bixinta nadiifinta nidaaminta caasimadan jamhuuriyadda Soomaaliland marka ugu horeysa waxaan u hibeynayaa hambalyo iyo mahadnaq dhammaan ciidamada dabdamiska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gaar ahaan ciidamada ka howlgala caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland taliye waxaan anigoo matalaya golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo shaqaale weynaha dawladda hoose waxaan noo farxada maanta inaanu ku wareejinayno gaarigii ugu muuqaadka weynaa dhinaca biyaha uu xambaaranayo ugu tuuryada dheeraa marka ay timaado inuu dab baqtiyo gaarigan ujeedooyinka ugu weyn ka leenahay waxa weeye maadaama Hargeysa caasimada tahay fooqyo badan dhismayaan
waxaynu u baahannahay baabuur capacitygooda biyaha ay qaadanayaan iyo tuuryada ay biyaha ku samaynayaanba ayaad u dheer tahay annaga oo markaa taa ka duulayna ayay farxad noo tahay gaadhigani inaanu kugu wareejino taliya gaadhigani second hand maaha saad aragtay waa gaadhi cusub waa siduu warshada kaga soo baxay waxaanu isleenahay wuxuu weli waxaynu u baahannahay kuwanoo badan sad adiguba u dirtay fariinta intaad la hadashayna aniguna waa kabaya war nin kastooba ciidankan ilaahay dadka wanaagsan ee reer somalilan aad adiguna magacyadooda xustay waa inay ciidankan taageero badan runtii ay u geystaan ciidankani maaha uun ciidan caasimadda iyo somalilan uun samata bixin ka geli kara regionka oo dhan baynu uga baahannahay haddii laynoo baahdo inaynu u gurman karno sidaynu horeba u samaynay markaynu gurmanaynana waxaynu u baahannahay gaadiid waaweyn oo cusub oo safarkaa dheer geli kara iyo qaar ku hadha caasimadda oo shaqadii sii haya labadaasaynu doonaya inaynu kulansiino waa sidaad u sheegtay taliye maaha tii ugu horreysay ma noqonayso ilaahay idinkii way inoo suuro geli oo dhaqaalaha inoo wanaagsanaan oo kan iyo qaar kaloo badan ayaa ilaahay idinkii dowladda hoose ay ku soo wareejin doontaa ciidamada debdemiska taliya annagoo faraxsan oo weliba waxaanu idinla jeclayn aan idiin dhiibayn baanu doonaynaa inaanu maanta gaadhigan hordhac u ahaado waxaanu idinku riyoonayno eanu idinla jecellahay ee dowladda hoose ay markaasi doonayso waanu ku faraxsannahay ciidanka debdemisku qayb annaga naga mida buu ahaa ciidan buu noqday qaran waxaanu ku faraxsannahay inuu sii koro waxaanan hambalyaynayaa taliya adiga gaar ahaan kugu hambalyaynaya iyo ciidankaaga iyo ku-xigeenadaadaba shaqada wanaagsan ee sharafta badan ee wadani daacadi un qabto ayaan kugu hambalyaynayaa ee xeradaada ka muuqata ciidankaaga ka muuqata gaadiidkaaga ka muuqata waxaanan kaaga marakacayaa taliya ilaa markii aanan anigu ahayn maayarnimada waxaad ahayd ciidanka qudhaateen wax ka qoro u hambalyeeyo shaqadooda qiro markii dambe mas-uuliyaddani ifuushayna waxaan arkay naftiina saa u biimaynaysaan waa saaad u sheegto markii liinka biliisku inagu gubtay aad baan habeenkii maaragtay u qiirooday dhibtii ay marayeen ciidamadaasi dadkuna waxaa laga yaabaa inaanay ogaal u ahayn in maaragtay ilaahay idinkii biladihii qarankood dahabaa iman doona dabeetana ciidamada naftaduurayaashii marka ay samata bixiyaan dadka ay dababkii waaheen oo kala baktiyaan ilaahay idinkii bilado dahaba oo ay bangiyada dhigtaan ayuu qaranku gaari doonaa inuu maalin ka mida siiyo laakiin dadka shacabka reer somalilan iyo gaar ahaan caasimadan aan maamulno ee hargeysa dadka qalbiyadooda ayaa biladuhu idin yaalaan oo waa laydin ogyahay shaqada aa haysaan ee qabanaysaan waxaan ilaahay ka rajeynayaa inaad guulaysataan waxaan ilaahay ka rajeynayaa in faamiliyadiina iyo qoysaskiina iyo caruurtiinaba in ilaahay subxaana wa tacaala alla barakeeyo shaqadana nafta dalkiina u haysaan ee nafta u huraysaanna in ilaahay ajar iyo xasanaad waxaan mushaarka la qaadanaya iyo darajada iyo waxaas waa iska uun adduunyo laakiin waxaan ilaahay ka baryayaa in ilaahay aakhiro diiwaankiisa idiin geliyo oo idinku qoro oo markaa jannooyin iyo dembi dhaaf aa ku heshaan waxaanan gacanta kaa gelinaya furayaashii gaadhiga waxaan rajeynayaa ana gaadhigan in ilaahay inooga dhigo mid inoo raaga mid shaqadaynu maaragtay doonayna inoo qabta markaa waxaan kugu wareejinaya furayaashii taliya aad iyo aadna waad u mahadsantahay taliya aad iyo aadna waad u mahadsantahay